بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل: موجبات الغسل. قبيسك وحا واجبي 6 لحوه. موجبات الغسل qabayska waxa waajibinayo 6 lixway. ilaaju lxashafati fi lfarj. xashafada waa dakarka intiisa hore ayaa la yidhaaha. fi lfarji farji la geliyo, macnaha dakar haddii uu farji galo oo qeybtii intiisaa hore xashafada la yidhaahdo ay farji gasho, wax farji lagu magacaabo. وكذا في دبر كنا وأولمده واسكمده قبيس با واجبي، أما منها صوب حضو أما يصوبحه اسكمده ولي محايا النبي عليه الصلاة والسلام حليه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا لبدي قدم كلمان قبيس با واجبي. كهو متك كوباد قبيس كواجبنا إلى جل حشفة في الفرج. وخروج المني من صواب حدا قبيس بواجبية. مني حتى صواب حدا غفك إيه كصواب حدا مني، أما هردها كجت مادو أما سوجيتها كجت مادو. هذا مني صواب حدا قبيس بواجبية وكيل لبعضه. سبب كل بعض قبيس كواجبين يوال خروج المني من صواب حدا. من ذا علامات لغو قرتي لا لهاي maxay saddex shay oo isu eg baa jiro oo calaamaadkay ku kala duwan yihiin qofku inuu kala barto waay. mini iyo wadi iyo madi. minida saddex calaamaad lagu gartaa: bitadafuqin, tadafuq way boodboodaysaa minidu, dhag 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 bay tiraahdaa. min maain daafiqin baa ilaahay min maain daafiq, khuliqa min maain daafiqin. biyo boodboodayo ayaa laga abuuray bini aadam. marka boodida ay boodayso oo markay soo baxayso dhag dhag ay leedahay waa calaamad minida lagu garanayo. calaamada labaad ee lagu garanayo waxa weeye taladud bay leedahay. taladud oo xaalada ay soo baxayso qofku uu dareemayaa, uu macaansanayaa. calaamada saddexaad ee lagu garto minida waxa weeye hadday minidu qoyan tahay, sida yacni ubax oo kale, geedaha ubaxa kasoo baxayo oo kale camal bay u urtaa suurteeda markay qoyan tahay. markay angegtana يعني ukunta camal bay u uraysaa. ukuntu yani ursaasa male, laakiin markaad ursato markay ukuntan caadiga wax yar bay leedahay oo suur ah. markay minidu angegto sida ukunta camal bay u surta. saddexda calaamo minida lagu gartaa. wadi waxaa la yidhahdaa waa biyo maa-un raqiiqun, biyo jilicsan oo asfar ah, midabkooduna uu yahay kareem camal iyo booro uu yahay. waxay soo baxaysaa caqiba intishaari dakar. hadduu qofku intuu dakarkiisu intishaaro ama yani shahwo iyo wax qalbigiisa uu dareemo ama wax mulaacabo iyo ama taabasho iyo wax uu sameeyo, yaa minidaasa soo baxaysa. wax macnaha wax qoyaan oo yaraa soo baxay. waxaas waxaa la yidhaha wadi. wadi baa la yidhaha. marxaba madi baa la yidhaha. madi baa la yidhaha. taas wadidu waxa weeye iyaduna maa-un abyad, waa biyo cad. minidayba aada ugu eg tahay, laakiin calaamaadkii minida lagu garanayo bootintii iyo waxaa iyo macaankii iyo malaha. waxay soo baxdaa caqiba albowl. inta badan kaadida gadaasheeday timaadaa. qofku intuu kaadiyaa laga yaabaa wax cad oo kasoo baxay inuu arko oo mina u eg.
أما عند حمل ثقيل وعلص هدول حنبارنا إنه وحكسوا بحام بالغي يابا قالوا ودي بالي ده مركب مديدة إيه وديدة لوضبه والنجاسة ماشي كاتا أبتان واسكت قيسا ويسروا ويبرنيا واتكيستي جونيسا هذا درك أما بدن كمال كاغارتنا وضا قيسا لكن واحد قبيس موجبين من هو ظاهر وماشي تابتين لما دقاي واسك ظاهر قبيس واجب سامنا مركز سداو وخروج المني من صواب حظي أي قبيس كي واجبين مني الشخص نفسه أول مرة تاسي كنت فقهها مركي شرحيان تاسي هذا قفك من داس وايرو يا قفك من ديسي كسو بحضي مني الشخص نفسه من ديسي واينك أول مرة نواينك وقفك من ديسي هدينا هاينه من كلا أي تروح كسو بحضي وحك لا كجرو تستقبل اسمه واجبين يسير وقوتي ما مثلا مركي هبينكي أي وداد كذي ودا ساحدين قبيستي يا مال النمدي بقى وحكسوا نقضين هذا بيها كسر وحلا كسر نقضي عرفت فاسد أيضا من اللي قاليه ما من أي شخص نفسه ما تيزوج كذا كوجلس أو ما يسكوجلس قبيس مو واجب يستاس سكتا قيساهم أول مرة وإذا صوب حذاله أول مرة قفك مني بقى كصوب حذي مني دي سبا صوب حذي مال بالغو شوي وقاس هذا ندب له عليه لكن كيف ندب له شو هذا الوش شو كذا دي أنت مال لغو شو سلنجا لغو قاعدة هذا ندب له شو لكن مرة بعد بيصير نقطة مرة بيصوب حذا هذا قبيس مو واجب النساء أول مرة المهر من التاسوي خروج المني من الشروط تاسع لوحده يقيد علامات كاسيله اساسا لو كرتا منه والحيض حيل با واجبيه وكي صدحات سبب كي صدحات قبيس كواجبين الحيض واي ديغن حيل كلا يراده دمرka ku dhaco markuu gabadha dhiigi ku dhaco uu ka go'o dhiigu qabays buu waajibinaya wan nifaas ba qabays ka waajibiyo waa dhiig umulaad baa leeyahay dhiiga ilmaha markuu soo baxa kadib yimaadaan nifaas leeyahay عنكو وإنه صوّد الدماغ الحين كسر دماغه هذا المتانيين حتى وإنه صوّد بحان ديجا كدم بي المها كدم بي وحاليا نفاس ديجا المها كأدو كسر مرة أما ديجا المها الله صوّد بحا كان لما يجي النفاس المها كدم بي عنكو مركو صوّد بحماشة ديجا ساليا نفاس حوم كيسو وانقاري دومان والولادة ولادة بها واجب صدر المدى نفت هذه oo ilmuhuna qabiiski buu waajibinaya ilmahan dhashay naftiisu qabiis buu waajibinaya dhiigga ka dambeeyo nifaaska la yiraahdo qabiis buu waajibinaya gabadhu markay umusho marka laba qabiis baa ku waajibay ka wilaadada waa ilmaha naftiisa isagoo iska angagan oo qoyaan lahayn oo dhiig lahayn waxba kama dambeyn wax kale kama dambeyn canug iska qadalan baa iska soo baxay qabiis buu waajibinaya لأن عنقاً وكأبور مي وإلهي كأبوري من القبيس بواجبين مركا أصل كيسي هذا القبيس واجبين يا عنق نبتي يزور صباح قبيس بواجبين قبيس بواجبين والموت موت بقبيس بواجبين سبب كل حال قبيس بواجبين والموت وادي ما شاء قفك هدول انتو إلا دقا واجب مركا انت geeridiisa ogaatay ama ehelkiisa ah la joogtay waajib waxa ku noqonaysa in weydka dhaqan walbawto marka lixdaas sababood ama arrimood ya qabayska waajibiso mujibatul ghusl balida faslun furudul ghusl qabayska faradkiisu ithnaani qabaysku waa waajib hadii lagu yiraahdo furud farad buu leeyahay arkaan buu leeyahay haddaan waajibkiisa lala imaanina qabaysku ma ansaxayo هدو قبيسك أنصحي وآيانا وعبادة أنصحها يا مجر يعني عبادة الشروط هذا هو الظهارة نقول كونه ظاهر ياه
فروض الغسل قبيس كفرد يالكيسو اثنان لبوي لبو فرض أمبولي قبيس النية وتعميم البدن بالماء بس لبدا فرضون النية وإن النية إن القبيس واجب قبيسنيس وحدث وين وحدث الأكبر ليلادو مانع وعبادتي كامن عيني صلاة كودي دي قرآن كينا أقرس كودي دي يعني مساجد كي قلدي سي كودي دي كود احنا قاتو مركا وإن كريالدي سوائنا أنه يتحدث كان أكبر كأول كالبيو واللازم وقال لهم أرمان حي رسولك عليه الصلاة والسلام حليه إنما الأعمال بالنيات عملك وحكو أنصح ياهم إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قبل أركان وحو نيودو لي مرك النية ولا بد كو مركات قبيسة نيسو وجلك هذا ماشي أقوه الرئيس أدبيها كو بالله بيسو وإن النيوت رفع الحدث الأكبر وإن النيوت الغلب يكو قبطو رفع الحدث الأكبر حدث كي ويناي ناس ككوريالي أوارهم بالكوبان فرض كلمات وامحي تعميم البدن بالماء بدن كاغا انت ظاهر كاللغو تريوردن وإن البيها كعمل بشرا وشعرا كل بدن كوردن جير كاغا إذن واحد ظاهر باطن معه واحد ظاهر كاللغو تريوردن وإن البيها كعمل مركا وحقوبها هي مركا badankaaga inaad yani tacaahud badan ku samayso oo meelihii ayna biyuhu gaaraynin haddaad inta halkaa tidhaahdo tuubada isku furto biyaha isku furto una iska shumaan biyuhu meelo badan bayna gaaraynin marka waa inaad biyaha meel alla meeshii daahir waxay daahir xisaaban oo dhan ayna biyaha gaarsiiso masalan markaad istijoonayso dabada inta markuu qofku saxaroonayo banaanka usoo baxayso dabadu daahirkay ka mid tahay marka istijoonayso waa inaad intaa dhaqdo si fiican waa inaad u dhaqdo na korka oo wax ka marmaraysa maaha qofka dumarka waa sidaas oo kale markay qalaa xaajaha gudanayso fariisato yani musqusha ku jirto intaa muuqanayso daahirkay ka mid tahay inay dhaqdo wey dhagaha markii dhagtaada sidaa loo fiiriyo inta la arkayo daahirkay ka mid ah sanka markii sidaa loo fiiriyo inta la arkayo daahir buu ka mid yahay calooshaadu hadday xoogaa hilib leedahay ama laablaab leedahay xalusi waxa leedahay laalaadan tahay waxaas oo dhan daahir buu ka mid yahay waa in la gaarsiiyo xudunta meeshaa godka ah inay biyuhu galaan timahaaga haddaad timo badan leedahay biyuhu waa inay salka basharka waa inay biyuhu tagaan markaa qabaysanayso timahoo dhan waa inay dhaqmaan biyaha gaaraan basharkaagana jirkaaga waa inay biyuhu gaaraan hadday timahaagu daban yihiin ama isku sii dhadhajan yihiinna iskaba dha hadday biyuhu galaynin in la furfuro waa waajib haddii kale wax qabayso ansaxayaa ma jirto gabadha hadday timaha u daban yihiin biyuhuna ayna gelaynin waa inay timaha furfurto raggii hadday timihii u daban yihiin meelahana rag timo daban lagu arkayaa malaha hadday timihii daban yihiin timahaas waxaa waajibun ah in la timuhu biyuhu waa inay galaan hoos waa inay galaan haddaan biyuhu geli waayaan wax qabayso ansaxayaa ma jiro wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam taxta kulli shacratin janaaba tin kasta hoosteeda janaaba ku jirta haddaad tintaa hoosteeda biyihii gaarsiin weydo wax janaabo kaa kor noqonaysa ma jirto hadday janaabo kaa kor noqonina cibaadadaadi waxba kama jiraan waxa ka ansaxayaa ma jiro timahan dheer waa cajiib wey imaamu cali bn abi taalib wuxuu leeyahay famin dalika baan caadaytu shacra ra'si markuu rasuulka sidaa aan ka maqlay waxaama la collaytamay buuri madaxayga timihiis markaa xiyar soo dheer adaanba waan jaraya waa khatar bade biyihii inay marka dhagaha markaa biyaha waxaa la rabaa gacanta dhuubkaa sidaa ugu shubaysaa biyaha markaasaad intaad dhegta sidaa u foorariso aad saa u dhex dhegaysaa
biyuhu way gelayaan dhegtina hoos kuma gelayaan dhegta kale saasa u samaysa waa fooranaysaa sanka biyaha waa gelinaysaa kor baa u jiidaysaa afka laakiin asagu baatin weeye afka waxba afka gudihiisa waajib kuguma biyaha gelisa baatin wey asagu marxaba si fiican inuu qofku u qabaystaa la rabaa waa inuu xadadka iska kor yeelo qofku anniyatu wa tacmiimu lbadani bilmaa waa labadaa farad wey wax iska gaaban wey laakiin labadooda ayaa gudo weyn inaa si fiican aada u kamisho wey faslun shuruud lwuduu'i 10 waysada shuruudeedu waa 10 waysada faradyaalkeeda arkaanteeda waan kasoo baxnay laakiin qofka weysaysanayaa shuruud laga rabaa iyo waysadu ka ansaxdaa qofka shuruuddan le waysadu ka ansaxaysaa alislaamu baa shardi ah qofka weysaysanaya inuu muslim yahay baa shardi ah sidaa aawadeed qofku markuu islaamayo qofku markuu qofbuu la soo hadlayaa islaamnimadii uu ku qalqaalinayaa iyabuu le wuu ogolaanayaa uu keenaya qofkan islaam buu diyaar u yahay shahaadadii baa loo qabanaya adigu soo wey waa usoo weyseeyey buu kuleeda waysadu kama ansaxayse waysada shardigeedu waa maxay alislaamu intuuna soo islaamin horteed aada usoo weysay ama usoo weysayni wayse kama ansaxayso markii shahaadada loo qabto kadib markaa waa in lo markaas weysaysanaya markaas waysadu ka ansaxdaa alislaamu baa shardi ah watamyiizu baa shardi ah watamyiizu baa shardi ah qofka waa inuu wax kala garanayo hadduu sabi yahay oo weliba waxba kala garasho ma gaarin weysadiisa ma ansaxayso weysadiisa ma yaqaan iska un istaagaya iska tuko inaad tiraahdo iska sii baraysa ma oge hadduu waxba kala garanayni mumayis markuu noqdo canugu markaa wey marka cibaadada la farayo wax la barayo mumayiskuna waxa weye 7 sano markuu canugu gaaro ama markuu wax kala garto oo inuu wax kala gartay see loo garanayaa idaa akala waxdahu wa shariba waxdahu wastanjaa waxdahu fahuwa mumayis taasay ku leeyahay hadduu qofku keligii wax cuno orod qadee baa leeyahay cuntada halkaasaa lagu saaray uu cunay isagaa biyihii soo qaato biyihiisina uu iska cabeen musqushuu keligii gelayaayo isagaa soo istijoonayo wixii iska dhaqayo taa waa mumayis canug markaas wixii loo sheegay wuu garan karaa markaas weysadii baa usheegaysaa wuu weysaysanaya marka tamyiiz baa shardi ah waa inuu mumayis yahay qofku wannaqaau can ilxaydi waannifaas gabadhii markay weysaysanayso waa inay daahir ka tahay xayd iyo nifaas labadu gabadha ayadoo dhiigga qabto dhiigga xaydka qabta weyse kama ansaxayso weysadu waa xadad asqara xadadkii yaraa wey kii akbarkaaba qabtaaba oo dee qabays waajibinaya kan waxba kama ansaxayo nifaaskuna waa la mid dhiig umuleed dhiigga umusha wa camaa shayna qofku waa inuu daahir ka yahay wannaqaau daahir waa inuu ka yahay camaa shay yamnacu mancinaya wusuula almaa biyaha gaaritaankooda ila albashara jirka ay gaaraan qofku markuu weysaysanayo acdaada laga weysaysta xibnaha laga weysaysanayo waa inuuna ku sugnayn wax biyaha ka mancinaya inay jirka gaaraan hadduu korka qofka hadduu wax ku dhegan yahay qofka jirkiisa wax ku dhegan yahay biyihii markii la mariyo biyihii ma gaarayaan hoos weysada ma ansaxayso ilaa waxaa laga fujiyo biyo ay jirka gaaraan wa camaa shayna waa inuu daahir ka yahay yamnacu mancinayo wusuula almaa-i biyaha gaaridooda ila albasharati jirka ay gaaraan ila albasharati jirka ay gaaraan waa wax jirka ku dhegan oo biyaha inay gudbaan celinayo wuxuu doonaa noqo xanjaa meeshii ku dhegan waxbaa lagu dhejiyey waxyaalahan oo markii qofka nabar iyo uu ku dhaco maarata meel iyo laga saro sharootada lagu dhejinaya waxbaa ka mid a waxa yacni adag oo biyihii ka gudbi karin weye oo baca meesha ku dhegan waa waxaas in laga fujiyo laakiin waxyaalahan la marsanayo masalan jirka qofku wax marsaday subag baa jirkiisu maray oo waxbaa iska markasa u marsa kaa waxba weysada kama dhibaayo waxaan weysada waxba ka dhibayna cilaanka ay gabdhuhu marsanayaan gacmaha saartaan iyo waxyaalahan gacmahooda ay marmariyaan ku qurxiyaan waxba kama dhibaayo weysada laanna waxaan waa wax jirkii oo yani kalar uu lagu sameeyo oo wax la mariyo mooyaane wax jirka kor saaran
oo haddii waxaas la qaado hoostiisu meel angegan ay ka soo baxaysa maaha sooma waxa weysada mancinaya waa wax jirka daboolayo wa anlaa yakuuna cala alcudwi maa yugayiru lmaa wa anlaa yakuuna waa inuusa ahaanin cala alcudwi xibinka korkiisa maa yugayiru lmaaa biyaha wax doorinayo qofkii waxaa lagu misaalin jiray masalan qolada geeljiraha geela raaco dhulkaasay joogaan way saq badan yihiin mar alla markii waxbuu ismariyeen oo biyihiisaa markuu u mariyeyba biyihii horreyso meeshii uu mariyeyba wayba doorsoomeenba guduud bay noqdeen taas horta waxa inuu iska dhaqamooge weysada waxaa la rabaa biyaha markaad jirka mariso waxaa la mid a qolyahan makaaniga iyo kuwa waxaan ka shaqeeyay wasaqda ku dhex jiro inuu marka hore waxaa iska dhaqo wey haddii mar korkiisa oo dhan ba waxbaa saaran wasaq baa saaran biyihii bedelayay mar alla markii uu biyihiisaa u mariyeyba wixii hore dhan waxay noqdeen wax madow wasaq ah taa lama xisaabina biyaha waxaa la rabaa markii biyaha xibinka ay maraan weysada markii xibinka saa biyuhu u maraan ayagoo cad oo sidoodii oo isbedelin baa rabaa inay xibinka ka qulqulaan wax biyaha doorinaya waa inuuna dul saarnayn anlaa yakuuna cala alcudwi maa yugayiru lmaa biyaha wax doorinaya waalcilmu baa shardi ah inuu qofku u cilmi leeya og yahay bifardiyatihi fardiyati lwuduu weysadu inay farad tahay oy waajib tahay qofku waa inuu cilmi leeyahy wa anlaa yactaqida waa inuusa ictiqaadin fardan min furuudihi sunna weysada faradyaalkeedii waan soo maray 6 bay ahaayeen niyadii wejigoo la dhaqo labada gacmood la dhaqo masxu raasi madaxoo la masaxo labada lugoodoo la dhaqo iyo tartiibkii 6daa bay ahayd weysada faradyaalkeedii aan soo maraynay mid ka mid a waa inuuna sunno u ictiqaadin wejiga dhaqidiisu waa waajib waa farad soo ma wejiga in la dhaqo waa iska sunna hadduu ictiqaadiyo weysadiisu ma saxi ولا يعتقد فرضا من فروضه السنة والماء به الطهور ظاهر وإنه بيهن أكوي سيسنين بيه طهور وحظهر وإنه ودخول الوقت وقت وإنه قالوا والموالاة حليل باشردية لدائم الحدث لبدا شردية أودا بيب لدائم الحدث بأيالا ودخول الوقت لدائم الحدث qofka xadadkiisu uu daa'imka yahay inuu markuu weysaysanayo waxaa shardi ah inuu waqtiga u galo daa'imul xadad waxaa la yidhaha qof cillad baa ku dhacday waxbaa ka soconaya oo aan istaagayn kaadidii baa soconayso ma istaagayso masalan ama riixdii neeftii baa soconayso ma istaagayso daa'imul xadad baa la yidhaha qofkaas gabadhi waa mustaxaado dhiig baa iska soconaya de qofka daa'im xadadka waa macduur qofka asagu iska fayow markuu rabo intuu iska weysaysto intaas muddo iska joogo markay salaada waqtigeeda la gaaro tukan karaa laakiin hadduu daa'imulxadad yahay oo macduur yahay oo weysada yacni dahaaradii ma xajin karo waxaana iska soconayo waa inuu waqtigu u galo mar alla markuu waqtigu galo unbuu isdhaqdhaqayaa meeshiibuu wax ku xirayaa weysadii u boobsiinaya horuu ka tukanaya ودخول الوقت لدائم الحدث قفك حدث كيسوبة سعونايو وقت إنه أقلها شرطي أول سواء وقت اللي قاري مسي ويستنكر والموالاة لدائم الحدث ويسنن وإنه حريري قفك دائم الحدث كا حريري انتو نوالما قفك مركز ويسيسن يسن يعني حبناها نعبا وضوء أطلقضوء سادو ويسيسنتو فروض وإيه لكن إنا تسكو حجيسو هل ميلا أتكو ويسيسنتو qofka fayow waajibkuma aha waa sunno maalan xaafadda oo kale intaad wejiga iyo gacmaha kusoo dhaqato ayaa lugahana masaajidka ku dhaqan kartaa weysadana saasay sax ku tahay ama intaa hadda weysaysato qaarka hore ka weysaysato muddo iska joogta kadib yaad haddaba lugta dhaqan kartaa marka laakiin waa sunno inaad hal meela ku wada weysaysato xibinka horoon angegin inaad xibinka kala sii dhaqdo kana qallalan kii ka darkin inaad sii dhaqdo waa sunno taas laakiin qofka daa'im xadadka ee macduurka asagu waajib weeye muwaalaadku maxay la haduu kala reebo oo u daahiyo xadadkii baa ka imaanaya soo ma marka asagu inay xiriiriya waajibo labadan shardi oo qofka daa'im xadadka u yaala ودخول الوقت لدائم والموالاة لدائم الحدث لبداس دخول الوقت وقت هو إنه قاله والموالاة حرير ما شرطها لدائم الحدث قفك حدث دائم فوانك شرطي وشروط الوضوء بالليلة فصل نواقض الوضوء ويسد وحي بريني أيوه فصل نواقض الوضوء ويسد وحي بري 4 أشياء 4 شيء
الأول كان كوبان الخارج شيء صوبحي بابرنيه ويسدي واحد بري الخارج شيء صوبحي من أحد السبيلين لبدي وضع متكود وحكا صوبح لبدا وضع محي من قبول أو دبر لبدا يعني بني آدم كأوليه هاي وحوي وقبل يدبر قبل وحل محل ككادو محل البول ماشي كادو كإمات قبل بالينا فرجنا والينا دبرنا ومحل الغائب ماشي سحرده كإماته marka labada meelood waxa la wixii ka soo baxo way sida uu burinaya al kharij min ahad sabilayn labadii wada midkood wixii ka soo baxo min qubulin aw duburina labada wada riixun baaburinaya al kharij ka bedel riixun baaburinaya aw ghayruhu ama wax kale neef baa soo baxday way sida way buraysaa waxba cayn baa soo baxday way sida way buraysaa illa al miniya minida mooyaan oo wax alla wixii labada wada ka soo baxo ama neef ahaadeen ama wax muuqda ha noqdeen way sida way burinayaan illa al miniya minida mooyaan oo minidu haday qofka ka timaado soo weysa qabo iska daahir haday minid ka imaato minidaas weysada ma jibinayso ما برينيس لكن قبيس بيواجب يسامله من قبيس بيواجب يساوي ويسد ما بريس الثاني كلا بعض ويسد بروني زوال العقل عقل يزول تجول بالنوم هردو كتجي أو غيره أما وحكلو كتجي عقل جبه هدوء وحير زوله ويصير بريزة زوال العقل بالنوم أو غيره قفو وصيح ذي يعني مركز سياحته وحبا يسكبه أوجي تمام مرحو رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي لبدا إنه دبدا حرحر كيدوه دبدا واحد إلالنا يجب لبدا إنه فمن نام فليتوضأ منكي ويسي هردودا هو يسيستو وحبا يسكبه أوجي حدا سوى بحي وحبا كما أوجي مركز سوى جيدو ما تسوكتها تمام مركز هذا هرددي هذا عقلي يكون زوله ويسده هو يبرتين سو حديث بعدين أيه هذه وحكة عقلي يكون زوله أنه قفك وحواه بكل عاي وقلبي ليس حواه زيادة ومرأة أما وحواه ويسده هو يبرتين هذا هذا عقلي يكون زوله بس زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد كيف دي هرددي سويان ممكن المكانيين مقعده مكان فندقي سوى دبديس من الأرض دولك مكانيين qofku markuu seexdo hal xaalo u meeyay weysadu ka burayay markuu sida u fariistay caadi tarabbuc baa leeyahay tarabbuc intuu saa u fariistay uu caadi u fariistay lugaha sida uu soo doomarsan kaasa ku seexday weysadu ka burayay markaas laana qofka sida u fariisto wax kama soo baxan sida qalab laana waxa way si caadi qof dhulku makaniye si toos u fadhiya dhinaca uma leexsano ma seexanin dhinaca ma tiirsanin oo صحابته رضي الله عنهم انتي مركي صلاة السوريان ايوه فرديو ايه سيدا كسو حنجرين او غازو كوغا من جرين وين تكني القفك فردي انه اساسا اوفرستي ويسيدو كما بريس الا نوم قاعد ممكن الا نوم يعني قاعد ممكن مقعده من الارض كاويسيدو يسمى بريس رسولك صلى الله عليه وسلم أسمه ويسده هردديس ويسمى بريس نبي هردديس ويسمى بريس واختصاص كيسي كمد وحي الله لو خصيصي كمد النبي عليه الصلاة والسلام هذا مركو هردر وأنا بقول ليه يعني تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أنا وهدانا يا أنبياء بقول ليه إنها أمبا كسحناي قلوبتين ويسوجد وحال وحي لليه ودنه ومغلين ودول marka haduu nabi caadi uu tu seexay hatta iskala bixiyo oo saasata ku khooriyo uu iska tukanay laana qalbigiisa waxa la uu soo jeeda ilaa ilaahdo uu maqlaya
hurdada weysada burinaysa lagu jiro hurdo kaamil oo qofka waxba ogeyn haddaad saas yuro kala bixiso oo adoon hurdin oo hadalkii wixii caadi haddaad u maqlayso taas maaha hurdada weysada jebiso weysada kaama jebiso markaas marka nabiga khaas ku tahay oo calayhi salaatu wasalaam aad arkaysaa xadiidka qaar ku waraysa nabigu intuu seexday inuu idina iska tukaday lagu kadsoomin mid qaarka kusoomalaya nabiga khaas ku tahay calayhi salaam ikhtisaasaadkiisa ka mid waxyaalo badan oo waxaa jira nabigu uu khaas leeyahay oo ummadda kale aan u banaaneyn athaalithu ka saddexaad ee weysadii burinayay iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin kabiirayni ajnabiyeyni min gayri xaa'ilin nin iyo naag jirkoodoo kulmaa weysada buris iltiqaau basharatay rajulin wamra'a nin iyo naag basharkooda waa jirkoodoo kulmo oo istaabto kabiirayni xaal ay yihiin waa laba qof oo waaweyn macnaa waa qaangaar wey kabiiraynidu kutubta qaar waxay yidhahdaan balaqaa xadda shahwa xad la ishtihayn karay gaareen way ajnabiyeyni ajnabi bayna kala yihiin oo maxram ma aha dadkii aan nikaax isu qabanaynin ee maxramka aha ma aha waa ajnabi bay kala yihiin min gayri xaa'ilin dhar la-aan bayna istaabteen maxaa la shardiyey horta rajul iyo wamra'a laba jinsi waa shardi horta rag iyo dumar waa shardi bashar inuu yahay waxay iska taabteenna waa shardi basharatay rajulin wamra'a markii lagu leeyahay bashar baa shardi waa jirka markii bashar lagu yidhaha maxaa baxaya timaha haddii aad ka taabato naag ajnabi ah ama iliga haddaad ka taabato ama ciddida haddaad ka taabato ma burayso weysada laanna bashar ma ah bashar baa jirka wey kabiirayni baa shardi a laba waaweyn waa inay yihiin hadday labadoodiba yaryar yihiin ama mid baa yar oo lama ishtihaynayo gabadhi waa gabarh yar oo xad la ishtiheeyaba ma gaarin guur loo ishtiheeyo dadkii fiicnaa oo ehlu daacad ahaa iyo ehlu khayrka ahaa hadday gabadhan yidhaahdaan gabadhan waa yartahay wax guur gaartay wax la ishtiheeye maaha weyse ma jebin hadday yidhahdaan gabadhan guur way gaartayna yani way geli kartaa markaas way markay weysada jebinaysa wiilkuna saas oo kale waay gabdhihii wan wanaagsanaa ee dhowrsanaa ehlu cibaadada ah wiilka ay ishtiheeyaan kaaway midka weysada jebinay dadka wax walba iska ishtihaynaya ictibaar male ayagu ilmaha hadda dhashay xataa iska ishtihaynaya kuwa ictibaar male dadka wanaagsan oo ehlu khayrka ah ehlu waraca kaasa la fiirinaya marka kabiiraynidu sidaa waa inay waaweyn yihiin balaqaa xadda shahwa xad la ishtihayn karay gaareen ajnabiyeyni bay kala yihiin ajnabi waa inay kala yihiin haddana de labada qof waaweyn yihiin oo ajnabi kale ayna maxram isu yihiin weysada ma jabiyaan maxaarimta waad garanaysaa ama nasab yani xaggeeda maxrama kuugu noqday ama ridaac xagga nuugmada ama musaaharada xagga guurka iyo xididnimada aka oo dumarka yani maxramka ahaa ilaa iyo 8 iyo 10 bay ahaayeen 7 nasabka xaggiisa maxram kuugu ah oo xaraamka iyo 7 xagga ridaac 14 iyo 4 xagga musaahara 8 وكو وليجود يعني حرام تكاكوس زي دول مرنا حلال كون قوي قول قول ويسكا ما جبني اخواس محرم دي محرم اجنبيين باشر دي من غير حائل هذا نقدر الان وين استابتان وح ساتره هدو كحيغو ولو خفيف بهاد نقول سفلت خفيفه يا ساجر كيدو سارو جيركيدو دن laga arkayo la tilmaami karo cadaantiisa iyo kulli arkayo wax un haduu ka sokeeyo waysid ma jabis tabagan khafiifka ah sidii amalaha dumarku gashanaya malaha iyo aad ku qabiilka jirkoodi baa laga garanaynin ina wax qabtay kala ku shakinaysaa tama waxaas baa la ka dhigay wax ba haduu ka sokeeyo saatira waysid ma jabis min غير حائل استابتن shuruuda markii laga helo yaa labada qof istaabatay jirkooda istaabtay weysada waa ka buraysaa kii la taabtay iyo kii wax taabtay labadu way ka buraysaa weysada way ka buraysaa
مرحبا الناس أجنبي إلي ويصير كاجبنيس ومسألة خلافية لكن علماء السنة يقول بديهين أو معلم قوله بدل وحي قوانين ويصير جبنيس وأنا أجنبي قال لقوله تعالى أو لامستم النساء أو لامستم النساء هوينك هذا تابتان لمسيغاس تابش على المفسرات وحكى له المفسرات جماع بالمفسرات أو لامستم النساء هوينك هذا جماعدان مركا لمسيغاس لغة عربية تابشو كعنت لغو تابتو أما جرك ميل لغو تابتو إيو جماعي لبضا باللغة العربية وكسارونه لكن نصوص بدن با يعني بدن با waxay leeyahay waxay aydayaan u badan tahay lamsiga in loo isticmaalo aayada looga jeedo ma loo isticmaalayo gacanta wax yada lagu taabanayo ama jirka taabanayo فلمسوه بأيديهم لا إله إلا فلمسوه ويتابتين بأيديهم marka masiga lamsiga inuu taabashada yahay taas xoog badan mid kale waxa weeye wax waa cibaado hadii aad taabashadeeda ka weysaysato cibaadadaadaas wax khilaaf iyo muran kuma jiro laakiin hadaa tiraahdo taabashadeeda aanu ka weysaysanaye markii uu jimaaca lagu fasiraya cibaadadaada muran baa ku jira waracnimo loo baahan yahay waracnimo loo baahan yahay عبادة هذا دور توي مسألة هو مسألة خلافية الرابع كان أفراد سواء كأفراد ويسد البرين هي مص قبول الآدمي من آدم كقبول كيسان الله تابتوي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بدون الأصابع لو تابتوي قبول ومحل البول شكاده كإيمان ومرجع هذا لما دبرته هذا قبل بالله منفرج بالله والله تابتوي أما حلقة الدوري دبر والله تابتوي دبر وريق كذا وأنت يزدبر لي سجودها أول والله تابتوي قال له تعبنا يا بطول يعني أصابع ببطن الراحة على عشة أبو تعبنا أو بطول الأصابع وأنت عاد يزدبر لي سو كليا برني هذا أبو تعبنا جير كان كرماها طلبت كتابة تكامل بريسو كعنت ظاهر كذا كردا كتابة تكامل بريسو مالك لا كتابة تكامل بريسو وأنت لو قاعد يزدبر لي سو كليا ما كان فرجي كتابة أما دبدي من نفسه قفك أسرع كتابتي ويصير ويكبري أو من غيره قفك لو كتابتي ويصير ويكبري حتى من ولد صغير عنه جيس يراهدو كتاب ويصير ويكبري هذا فرجي واحد لقوم مقعابة أما الدبر لقوم مقعابة هذه أبى تابته ويبرز ويصير أنت على إزدبور لي هذا كتابته ويصير ويبرز مركا مصر إيا لمسي وكل دوين لمسي عن سوم مريني وناك أجنبي وتابته أهي إيا مصر وفرجي تابته وكل دوين بحكل دوين لمسي محلو شرديني لما قف وكل جنسي على شرديني يعني ناك ويليين مصيغة فرجي اللي تعباني من جنس نفسه وقف يسكبرني حتى لا جنس لو ما شرطي كو وحلو شرديني لمسيغة وإنه لبدا جنسي ولي بلا وقف ووين وكبيرين أو أجنبي كلا وين يهين لمسيغة لو ما شرطي مصيغة لو ما شرطي أجنبي اللي فيرن مايو إنه قف وين اللي فيرن مايو ما يسمى فرجي وين وحلو فرجي هو عادات عاود بس waxay ku kala duwan yihiin lamsiga markay labada qof istaabtaan labadoodiba weysada way ka bureysay laakiin masiga kan farjiga gacanta lagu taabto qofkii wax taabtay bay ka bureysay kii la taabtay weysada kama bureysay qofkaas wado gacanta kala kan uu taabto kii wax taabtay bay weysada ka bureysay kii la taabtay waxba kama burayaan ilaa الحالة كليه كبرس إلا وقت أو كتابنا يتقف وين أجنبه إلى تيمون وتاه الدنيا وحيكون بريس أمريكاس استابشة كليه بريس يبريس أمريكاس فصل من انتقد وضوءه ويسلي سقف يبرته
حرم عليه وحا حرامك 4 أشياء قفك ويسدو كبرته أفر شيء بحرامك الصلاة صلاة وكحرام يعني صلاة شرط جد وطهارة ويسد بكبرته قفك ويسد مقام وضواف باك حرام ضواف كنا ومنزلة الصلاة وكل جوجا حرم كمرك كعبة مركها تكتو تحية سلامة اللي سلامة وحوي وضواف كوح شرط وظهارة شرط ضواف باك حرام ومص المصحف كتاب قرآن تابشدي باك حرام وحمله حبار دي سنة باك حرام قفك ويسلا أنت كتاب قرآن ما تابن كرو من غالك وكتابك قرآنك تابشدي سوحا الله شرطيا إلى دوي سقط لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه قرآن كما تابته إلا المطهرون كوا ظاهر كامويان كوف ظاهر باو ولا كتابنا لا يمسه آية محيط المامسة مصحف كيت المامسة قرآن لا يمسه إلا المطهرون محاول دليله تنزيل من رب العالمين قل يا حكومة الريان وإليهن أم اللي وجه لو وحن إليه لما تابنا إيا الله محفوظك لا يمسه إلا المطهرون الله محفوظك الغوة لا يو ده ملائكة موجود قفل وتابنا يمجد ملائكة ظاهر زمان كاسو حديد تنزيل من رب العالمين تنزيل دجنوي من رب العالمين إلهي حقي سلقى سودجي وحل سودجي بقرآن كما الله محفوظ لما سودجي يا جازو كيالا مركا قرآنك وكلام الله ومعظم وويه قف أن ويسقبل إنه تابتغل إلا ضرورة الانضباطك الإماتة أما قرآن كماله كل عيو أما وحدبه إيمانيا وقف عده وقعنته أقليه مالا ظاهرين وكل عيو مركا وضرورين القابل لكن أدور ظاهرين ويسقبل قرآن كما تابتغل وحمل حنباري دي سنة دوام باب الأولى مر هذه الطابشة الجود دي قادم دي سنة كذي من باب الأولى أغيش درنتا ما قادم كتدوي ويحرم على الجنب وفي جنابة قبل وها حرامك 6 أشياء لحشي الصلاة صلاة باك حرامة وقف جنابة قبل صلاة بتكون كذي صلاة شرط غير وضحارة وضواف باك حرامة كعبال ما ضواف دور قفك سوى الجنوب إلا وضح رقل ومصر المصحف كتاب قرآن تابشدي باك حرامة وقفك ويسلام تأتي كتاب ينتابن اللي يري كي يعني جنابة قبينا من باب الأولى وحمله حباردي سنة باك حرام والربط في المسجد قفك سوى الجنابة قبل المساجد كل إحنا هذا حرام لأن إنه دح مرة يمساجد ساو دح قدوم بيانه إنه دح فارس دح تاجنا هذا قف جنابة قومين وحرام وقراءة القرآن ما كحرام وقفك أسوي جنابة قبو قرآن كما أقرين كرم ورسولك عليه الصلاة والسلام حليه الحائد قفك حيلك قبتي ولا الجنب كي جنابة قبي لا يقرأني شيئا من القرآن القرآن ككمل ما أقرين كرم القرآن كأذكرك كتقان ما أقرين كرم هداد من جنابة قبت محايا لك يودي رسولك عليه الصلاة والسلام ما غير تدوي إلا بقصد الذكر وحيالي يرضى اللقوء قريه والذكر أدو قصديس أدو جنابه قبو هذا وحو ريسو بسم الله بعده هذا ما يسمى الحمد لله ذات قادين فول ريسو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بقصد الأذكار ذكري بعد أني يونس أذكرني بعد أنا وآخر نسائه قرآن نبى إنه وآخر أني يونس دون مركز اللجوء قليهم ويحرم بالحيض حيض وها حرام كوا سببتي 10 أشياء قبل نمر كي حيض قبته ديك قبته نفاس كنا والله بده تقول شيء بحرامك على الصلاة والصلاة بك حرام قبل ديك قبته ما تكون كرته صلاة ما تكون كرته سنة يفرض وضواف بك حرام مكعبل ما ضواف قبته قبل رأي حيض قبته ومص المصحف كتاب قرآن تابشدي سباك حرانا وحمل حباردي سنة وكحرام قول رأي ذا حيل قبل القرآن كما تابن كر ما أقرن كر ما قاضي كر صدق لبين اسمه ده القرآن كما أقرن كرتو ما تابن كرتو ما حمبار كرتو ما قاضي كرتو
لأن ديجا وحلا إلى يعني حدثك وحلا إلى حدثك وحا أقوين وحا قوانا كوسوغنا ديجا حكم كاس حيلك الليلة وحدثك متك أقوين واي وحي كفضوا دا ويسلانتي جنابدي وجنابدي هو حكم المعنوي أو عبادة الريبة يا مويانة من هو أسكن ظاهر قفك الجنابة قبل واحد مستقدر أي واحد يقول بسبب منه ملها لكن منه ومانع عبادة الريبة معنوي أول مركا حيلكو وحوق بأسوا مانع أبو حدنا وحوق درصدي إنه يهي وحي يعني وثقه قرنا أول مركا ما قرآنك ما تعبان كرتك قرنا كذي قبل حيال إلهي وحوليه سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون قرآنك ما تعبت إلا هو ظاهر كامو يعني قف ظاهر وما تعبان كرتك sida hore u sheegnay qof daahira uma quraanka taaban karo oo xadadkii kii weynaay akbarka qabiiska waajibinayay iyo kii yaraay weysada waajibinayay labaduba qofku inuu daahir ka yahay marka uu quraanka taaban karo marka uu aqrin karo gabadha xaylka qabto iyo ninka janaabada qabo ma aqrin karaan buu nabigu leeyahay salaatu wasalaam la yaqra'ani shay'an min alquran والنفي أو بمعنى النهي أو حديث أبو داود الترمذي ورنيه لا يقرأان يسنغرني وي والنفي أو بمعنى النهي أو شيئا من القرآن ما أقرأ كلام أنا أحلل معي والنبي يقول لي قف جنابه قبل ديك قبته شيئا من القرآن قرآن وحكم لنا يقرأ وما حلل لي النبي وما حلل لي وهو ما طابق كلام مركا قفك جنابه قبل haddii uu kitaabka quraanka inuu taabto loo diiday sharcigu u diiday ka manciyay laana maanic baa ku sugan xugun yani xadad akbar ah ku sugan oo cibaadadii mancinayo Soomaa gabadhii dhiig qabtay oo aan cibaadays aan salaad tukan karin oo aan soomi karin oo zawjkeedu aan la seexan karin see loo dhigi karaa kitaabka quraanka intaad qaadada akhrin kartaa taa musiibo walaal حيلك مركو إلهي كوربي محو إلهي كنت الماوي وحي إلهي لي ويسألونك عن المحيط ويسألونك النبي محمد وحي كويدين يعني عن المحيط حيلك كويدين يعني ليق نفتي سوي محيط ومصدر ميمي أهلي ذا مكان معها زمن معها عن المحيط حيلك بكويدين وديك قلوا حاتر هذا هو حيلك أذن قرن ويد أذن وقرن أو الصقوي فاعتزلوا النساء هوينك كفوا هذا في المحيط وكيديك غبان ولا تقربوهن حتى يظهرن هود واننا إلى أي ظاهر النقطة وحرام قبل يديك قبطو إنا لسيحة الاستعماش أو الجماعة وحرام وإلا ما أقبل دم بقول على كبيره هوين فإذا تظهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله مركا هدي مركا قودي ديق قبتي ديق مركا إلهي وتلمامي ألا إلهي كتلمامي قرب إلهي كتلمامي واللودي دي قودا الزوج كيدي إنه الله معامله إلى أي كطاهر نقط سي مركا يعني أي معنى ضمير كيدي أوكينيا أما قفء ضمير كيس أوكينيا قبل النوع عاسي أديك نفتي صحة أولا سيحان واي يا وحولي إلى الكلام كإلهي قرآن كأخر ساور قرآنك وكلامك إلهي معظمك إنك أغرساو واحد دليل هذا يراته أو بنينا إلي قبضة حيلك قبطه ديك قبطه معذورة أي قرآنك قال أغرس واحد دليل هذا يراته من الهدي نصوصي وديدي واحد دليل لقدك يا أو قبضي اللي ليه هاي وقرآنك بعد أغرين كرتا حد دليل لقدك يا وكبروا مية قرآنك كبروا مية قبله دي جسان أغنى أقله يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما دي جمركو قبلها هي مركو أقبل أنت يا واشان يتوبر يا الله أصبع سنة قبله أقبليهين غالب كود استقراء دليلة إذا قبله صدح عن نوعيين محاول دليل استقراء
culumadii waqtigii imaam shaaficiya zamankoodii ay joogeen haddii la raacraacay dumarkii la weydiiyey saddexdaa xaalay dumarka u bateen taasaa la qoray istiqraa la yidhaha marka dee gabadha dhiigga qaalimkiisuba waa 6 beri waa 7 beri hal usbuuc qur-aanka ku dhumaayeen keli waxaase su-aalahu isweydiin leh zamankii nabiga sala allahu calayhi wasalam soo dumar ma joogin dhiigu ku dhacay haway joogeen ma la soo raray oo miyaa marna la arkay maxaa loo arki waaye saxaabadii haweenkii saxaabiyaadka oo rasuulku ku leeyay qur-aanka idinka dhumaya iska akhrista qur-aanka marka wax ilaahiy rasuulkiisaba ay joojiyeen haddaad tidhaahdo adigu anaa gabadha qur-aankii baa ka dhumaya akrisa qur-aanka kaa dhuminaysa haddaad qur-aanka ka dhuminaysaa gabadha hadaad ayadoon daahirayn oo laa uqeyn ilaahay kitaabkiisa aad garabka u geliso ood qur-aankan akri tiraad dhibaatad ku ridaba gabadhi waad fidaysa waa fidno wey taas waxa aada u siiyaa badan yani qolyaha waxay isku dayeen inay wax daliila u keenaan gabadhaas maxaan u raadinayn marka daliil wax aan u daliil ahayn ayay meesha keeneen oo waxay yidhahdeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam caaisha umuna caaisha yaa waxaa ku dhacay iyadoo xajkii la joogay dhiig baa ku dhacay meeshan yani la yidhahdo sarif la yidhaahdo ayay iyadoo ooyeyso nabigu u yimid markaasuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam maxaa kugu dhacay maa yumkiiki an nufis miyaad xayshay dhiig baa kugu dhacay qaala waxay tii nacam faqaala wuxuu yihi nabigu ifcalii maa yafcalu lxaaj غayra an laa taduufii bilbeyt hada shayء katabahu llahu calى banaati aadam ifcalii maa yafcalu lxaaj غayra an laa taduufii bilbeyt waxan waa wax dabeeco ilaahay uu gabdhaha bani aadamka uu saaray ku xukumay ninka xaajiga wax alla wuxuu samaynaya samee laakiin kacbada ha dawaafin markaas waxay leeyihin gabadha nabiga calayhi salam markuu dhiiggii ku dhacay wuxuu u ogolaaday wax walba inay samayso ilaa kacbada dawaafkeeda mooyaane marka dawaafkii unbaa lasoo reebay waxa ay gabadhu samaynaysa waxaa ka mid a qur-aanka ay aqrinaysa waad u fiirsada arrintaas acmaasha xajkaa laga hadlay waxa gabadhan ay la ooyeysa rasuulku u baneynaya xukunkan yani wuxuu ka hadlaya waxa wey waa acmaasha xajka acmaasha xajka dawaafka mooyaane acmaasha kale waad samayn kartaa buu nabigu ku yidhi gabadha ku yidhi laakiin dawaafka basaa gabadha laga reebay wixii kaleo cibaada way samayn kartaa radi salaada ma tukanta dawaafka samayna buu nabigu yidhi xadiidka kuma sugna inuu nabigu salaada ka celiyey hadday wixii cibaadoo kale loo ogelaya may salaada tukanta may salaada ma tukan karta marka qur-aankii way akrinaysaa acmaasha shardiga waa qur-aan xajka yani qur-aan la akriya shuruudda acmaasha xajka ka mid maaha loo shardinayo qofku uu cibaadeysanaya cibaadada uu cibaadeysanaya buu qur-aanka kamid yahay mooyaane marka taa daliil ma noqonayso meesha waxaa laga hadlaya acmaasha xajka dawaafka bes uu nabigu reebay acmaasha kale markaa u ogolaaday taa daliil uma noqonaysa qur-aanka waa mid xadiid labaad baa jiray umuna caaisha waxay leedahay waa saxiix xadiidkaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam anuu dhiig qabo yaa intuu dhabtayda ku seexdo ayuu qur-aanka dareerinaya marka umuna caaisha oo dhiig qabtuu nabigu dhabteeda ku jiifo markaasuu qur-aankii ku akriyey mar hadduu dhabteeda ayuu dhiig qabto qur-aankii ku akriyey gabadha dhiigga qabto qur-aanka way akrin kartaa adama ayada akrisay mise rasuulka akriyay sala allahu calayhi wasalam taa waa daliil aan soconayn haba yaraan gabadhan markay dhiiga qabto dee dharkeedii bay qabtaa xukunkan waa iyadu masaajidkii ma gelayso gurigaasay joogtaa laakiin zawjkeedu wuu garab seexanayaa marada caadigu iskala huwan karaa cuntadii way karinaysaa wuu dhiibay wax walbo xataa gabadha jimaaca ma la ogolayn mooyaane wax kale muqadamaadkii iyo wax kale wax walba waa loo ogolyahay laka maa fawqa alizaar buna ogu yidhi xudunta wixii ka koraysa gabadha yaa kaaga banaan xaaskaaga markay dhiig qabto dee taabashadii iyo agjoogii iyo seexadkii iyo garab seexanaysay iyo nabiga calayhi salatu maalin ba asagoo masaajidka ku jiro ayuu caaisha qolkeeda ku jirta masaajidka qolka uu ku agyaalaya dariishada intuu saa furay nabigu wuxuu yihi sijaayada iisoo dhiib sijaayada lagu tukanay markaasi waxay tiri rasuulka ilaahu dhiig baan qabaa ina yadaki laysat xaaida gacantaadu dhiig ma qabtee xaaida ma iisoo dhiib sijaayada
marka gabadha yani nabiga calayhi salaam wuu tawjiihinayaa wuu barayaa sida gabadha marka dhabteedii buu ku aqriyay ma daliil bay noqonay ma noqonayso isku soo duubo gabadha dhiigga qabto yaa quraan akhrinayso fiir hada saddex dambi baa gabadhii la isugu daray quraankii oo akhrisay kitaabka quraanka ay taabatay masaajidkii ay gashay way ku dhex nagaatay waa saddex dambi oo haba yaraatay wax daliil lama jiro oo loo hayo marka arrinta waa arrin weyn halaga digtoonaado gabdhahana ha loo sheego waana oga naseexaynaynaa dumarku waxaan ayaga ilaahay kula khidaabay waa wujuub ayaga saaran inay iska ilaaliyaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man uftiya bigayri cilmin fa ismuhu calaa man aftaa qofkii loo fidyoodo oo loo sheego waxaan cilmi ahayn oo khalad ah dembiga waxaa iskale kii ufidyoodaa iskale kii ufidyoodaa iskale marka waa dhibaato weyn waa dhibaato aada u weyn ma aqrin karta gabadha dhiiga qabto qur-aanka ma aqrin karto waxaa la yidhaahdaa caqligu xataa wuxuu keenaya haddaad caqligaaga fiiriso hadda gabadha dhiigga qabta salaadii waa laga reebay hadday gabadha qur-aankiiba akrinayso waxa loo diiday bal salaada ku noqo salaada qaybaheeda waxa loo diiday ma rukuuca iyo istaaga iyo fariisiga miyaa loo diiday dee qur-aankii salaada qur-aankii bay shamlinaysaa waxa loogu diidayo yaa gabadho waa cibaado ilaahay la hortaagan tahay haddii marka qur-aankiiba ay akrinayso inay intay istaagto ama foorarsato ama ay fariisato taas miyaa loo diidaya maya way iska fariisan kartaa way istaagi kartaa way foorarsan kartaa waxa loo diidaya salaada loogu diidayo waxa weeye salaada qur-aankii wey qur-aankaa lagu dhex akrinaya salaada marka taas wey ومسؤول مصحف لا كحرام وحمله لا كحرام واللبس في المسجد مساجد كأنه يكون إحنا جاتها كحرام المساجد تحفر إذا قبل يريد قبض وحرام أنا نفسي إذا مقلي مساجد أكون جري دو مركي أو مركي صلاة اللي عقيمه صلاة اللي تجده مساجد الله قيبض وقيب قرائي قيب تقرأي دو مركو كنتو كنا يعني مركي صلاة دو مركي اللي عقيمه دي صلاة اللي وضع جلدتك ويوضع آموس يعني لكن دو مر بعد هذا اللي شيء كايرسو صلاة دو مركي اللي قبحه وأنا ويدي محير عند دمر كان صلاة اللي وجهه هذا اللي وقبليه معذور كها أيوة أنت كنين ومش محيوفر يعني دي معذورين محمد زوج لي عجيب معها ودبعته ولا لا نفسي إذا عركي قوم جوها وقبليه معذور كها وحماشة كهذا الطيب صلاة اللي وجهه واللبس في المسجد وحرام وقراءة القرآن وحرام تابين يتابطه إنه قاعده ساكن يكون إحنا جاته قرآن كإنه يخلص والصوم باك حرام gabadha xaylka qabto soonka ma soomi karto ilaa uu dhiigga ka go'o wadalaaqu dalaaq baa xaraam gabadha ayuu dhiig qabto in la furo waa xaraam wey dalaaqu wuu dhacaya laakiin waa dalaaq bidciha la yidhahdo waa xaraam iyadoo dhiig qabto in la furo gabadha laanna ciddadaa ku dheeraanayso walmuruuru maritaan baa ka xaaraana fil masjidi masaajidka ay dhex marto in khaafad hadday ka cabsanayso talwiiso masaajidka inay wax ku daadaa isku halayso gabadha dhiigga qabto dii dhiiggeeda xoog u soconayo oo inay dhexmarida masaajidka dhex marayso inay wax masaajidka ka faniinaan hadday ka yaabayso inay dhex marto masaajidka waa ka xaaraan laakiin hadday aamin tahay oo waxyaalahan ay qabaan dharkan ay qabto iyo waxaan yani xifaadadan ay qabto hadday aamin ku tahay waxba dhiig uun kasoo gudbaynin way iska dhex mari kartaa nagaashada ay ku daahaysaa loo diidaya mooyaane inay albaabka intii kasoo gasho kaa kasii baxda way yeeli kartaa waa banaantayda walistimtaacu baa xaarana bimaa bayna sura warukba gabadhii dhiigga qabtay xudunta iyo labada low inta udhaxayso in looga istimtaaco waa xaaraam wey intay gabadha dhiiggaa ka qabaysanayso laanna nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii weydiiyey wuxuu yihi xaaskayga maxaa xalaaliya markay yani xaylka qabto muxuu nabigu ku yidhi laka maa fawqa alizaar xudunta yani hoos guntiga xudunta way meesha marada hoos laga guntado inta ka koraysaa kuu banaan waxay leedahay umna caaisho rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaan dhiigga qabno wuxuu nagu amri jiray inaan itizaar samayno oon hoosta mare ku xidhano markaasuu fa yubaashiruna uu nala baashiri jiray marka waxaan la ogolayn un xudunta iyo labada low inta udhaxayso intaa in laga taabto laba gol waa xaaraam way gabar markay dhiig qabto faslun asbaabu tayammum sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muhammad